Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ty Warner ayaa ka soo muuqday liiska ragga ugu hodansan dalka Mareykanka. Waana nin ku caan ah farsamaynta waxyaabaha carruurta ku ciyaaraan. Waxaan lagu qiyaasaa hantidiisa $3 bilyan. Waa sida ay daabacday jariiradda wax ka qorta umuuraha ganacsiga ee Forbes. Wuxuu madaxa fulinta ka yahay shirkad ka kooban 100 saami. Dhammaan 100kaasi saami asiga ayaa iska leh. Wuxuu dhashay Ty 2 September 1944. wuxuuna ku dhashay magaalada Chicago ee wilaayada Illinois. Wuxuu wax ka soo bartay dugsiga sare ee Lyons, kadibna wuxuu ku biiray akadeemiyadda St. John ee militariga, kuna taal wilaayada Wisconsin. Muddo yar kadibna wuxuu ku biiray kulliyadda Kalamazoo ee ku taal wilaayada Michigan si uu u barto qaabka wax loo jilo. Laakiin hal sano kadib uu isaga tagay kulliyaddii, wuxuuna u wareegay magaalada Los Angeles asigoo ka mid noqday shakhsiyaadka wax jila. laakiin guul la sheegi kara kama uusan gaarin, taas oo ku kaliftay inuu qabto shaqooyin badan oo kala gedisan. Mar wuxuu shaqaale ka ahaa maxadad basiinka lagu iibiyo, markan wuxuu ka shaqayn jiray supermarket ku yaala magaalada Los Angeles. Wuxuu go'aansaday sanadkii 1962 inuu ku soo laabto magaaladii uu ku dhashay ee Chicago, asigoo shaqo ka helay shirkadda Dadkin oo ah shirkad weyn oo farsamaysa waxyaabaha carruurta ku ciyaaraan. asigoo muddo 18 sano u shaqaynayay shirkadaasi. Waxa uu suura gashay intuu shaqaynayay inuu kororsado khibrad badan oo ah dhanka farsamaynta agabka ay ku ciyaaraan carruurta iyo qaabka loo suuqiyo waxyaabaha ay ku ciyaaraan carruurta. Waxa uu dareensanaa mar walba inuu mashruucani ganacsi leeyahay faa'iido badan, kuna habboon yahay in la maalgashado. dhanka kale Ty wuxuu dhibsaday shaqaalinimada asigoo shaqaalaha muddo ka badan 25 sano oo xooggiisa iyo maskaxdiisa ay ku intifaaciyeen shakhsiyaadka leh shirkadaha iyo warshadaha. asigoo howlo waaweyn u qabanayay, wuxuuna bedelahaan u qaadan jiray sandareerto yar oo lagu magacaabo mishaar. wuxuu Ty ka tagay sanadkii 1980 shirkaddii Dadkin oo ahayd shirkad uu 18 sano u shaqaynayay. kadibna wuxuu u safray qaaradda Yurub, gaar ahaan dalka Talyaaniga. halkaas ayuu ku soo arkay agabka carruurtu ku ciyaarto oo naqshado badan, welibana uusan ku arkin naqshadahaasi dalkiisa Mareykanka. Ty waxaa aad u soo jiitay noocyada kala duwan ee bombalayaasha, isla markiina wuxuu meesha ka dhex arkay fursad dahabi ah. wuxuuna istusiyey haddii naqshadahani uu la tago dalkiisa Mareykanka isla markaana maalgashado inuu heli doono faa'iido badan. Ty ayaa dalkiisa ku soo laabtay sanadkii 1983. isla sanadkaas waxaa geeriyooday aabihii. dhan kalena isla sanadkaas wuxuu aasaasay shirkaddiisa Ty ee maanta dunida caanka ka ah, kuna caan baxday farsamaynta bombalayaasha. wuxuuna shirkaddiisa ku aasaasay lacag oo asiga hore u shaqaystay, lacag kale uu ka helay guri yar uu deganaa uu iibiyey, iyo xoogaa hanti ah uu ka dhaxlay aabihii. wuxuu bilaabay Ty in gudaha gurigiisa cusub uu ku dhex sameeyo bombalihii ugu horreeyey, wuxuuna u ekeysiyey bisad ku nool buuraha Himilaayo. wuxuuna ugu magac daray bombalahaasi The Mookie. halkii bombale oo noocaas ah wuxuu iibiyey $20. halkaas ayuu ka bilaabay ganacsigiisii. kadibna wuxuu u koray ganacsigiisii si tartiib ah. sanadkii 1991 wuxuu Ty farsameeyey bombale carruurta ku daadatay, wuxuuna ka helay bombalahaasi faa'iido badan, isla markaana wuxuu gaaray guulo mug leh. muddo yar kadibna wuxuu dhisay warshad weyn oo farsamaysa agabka ay ku ciyaaraan carruurta. ganacsigiisana wuxuu isku fidiyey gudaha dalkiisa Mareykanka. kadibna wuxuu u tilaabay dalka Canada oo diris la ah dalkiisa, iyo dalalka dhaca qaaradda Yurub oo ugu horreeya dalka Ingiriiska. sidoo kale waxay shirkaddii soo saartay sanadkii 1992 xirmooyin bombalayaal ah oo ay ku jiraan noocyo badan oo kala gedisan oo bombalayaal ah, asigoona markasta ku dadaalayay inuu soo saaro bombale cusub oo xajmigiisu yar yahay, isla markaana si sahlan u xambaari karaan carruurta, jaabka ama boorsada ku ridan karaan ilmaha, sidoo kalena qiimo jaban. wuxuu sanadkii 1993 naqshadeeyey bombalaha lagu magacaabo TBB, kaa oo lagu arkay dukaanada lagu iibiyey bombalayaasha sanadkii 1994. sidoo kale wuxuu bombalahani fududeeyey inuu iskaashi dhex maro shirkadda Ty iyo maqaayadda caanka ah ee McDonald. wuxuuna iibiyey Ty tiro badan oo noocaani ah, asigoo ka helay malaayiin $, oo faa'iido ah. dhanka kale Ty wuxuu maalgashaday hoteelo badan, xarumo dalxiis iyo garoomo badan oo lagu ciyaaro golfka. wuxuuna sanadkii 1999 iibsaday Hotel Four Seasons ee ku yaala magaalada New York, asigoo ku gatay adduun dhan $275 milyan. sidoo kale wuxuu iibsaday farac kale oo ah isla hotelka Four Seasons, kuna yaala magaalada Santa Barbara ee wilaayada California. waxaa intaa u sii dheer oo iibsaday garoonka Santa Barbara ee lagu ciyaaro golfka.